الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحنسوهن رسالة متن البناء، وحنسوقرن قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول منها فوعل يفوعل فوعلة وفعالة. درسي لصولها في وحنوصل هذا المي سدح مبحث وكسابسا إلحاقه. المبحث الأول تعريف الإلحاق، مبحث كاللباد وحوها شرطه، مبحث كسدحاد نوحوها فائدته. sidoo kale waxaan soo tilmaanay mulxaqaadkan loo qaybinayo saddex qaybood: almulxaq birubaaciy almujarad oo loo yaqaano mulxaq bidaxraja. qaybta labaadna waxa weeye almulxaq birubaaciy almasiid bixarfin, waxaana loo yaqaanaa mulxaq bidadaxraja. qaybta saddexaadna waa almulxaq birubaaciy almasiid bixarfayni, waxaana loo yaqaanaa mulxaq bixranjama. darsigana maanta wuxuu ku saabsan yahay almulxaq birubaaciy almujarad. mu'alifkana wuxuu soo tilmaamay 6 baab inuu ka kooban yahay. waxaan soo tilmaanay hal baab inuu ka tegay facnala, sida qalnasa bimacnaa albasahu alqalansuwa. qofka markaad koofi u xirtid baa waxaa la yidhaahdaa qalnasahu. nacam. wuxuu yidhi mu'alifka raximahu llahu tacaala: albaab alawal, baabka koobaad, minha min al35 xaalu ka mid yahay fawcala weeyaan, yufawcilu fawcalatan wafiicaala. mawsuunuhu kalimaadka wasankaas qaadanaya xawqala weeyaan, yuxawqilu xawqalatan waxiiqaala. wacalaamatuhu calaamada lagu garanayo an yakuuna maadiihi maadigiis inuu ahaado calaa 4 axrufin 4 xaraf mid ka kooban, biziyaadati alwaawi waaw ayada lagu siyaadinayo bayna alfaa'i waalcayn, faau lkalima iyo caynu lkalima dhexdooda. wa binaa'uhu binihiisuna lilaazimi mid u sugnaaday weeyaan, faqad oo keliya. wadaalika kaagaasi naxwu xawqala zaydun oo kale weeyaan, bimacnaa zayd da'diisii baa weynaatay, jirkiisuna waa daciifay. albaab alawal min almulxaq birubaaciy almujarad, fawcala 4 xaraf bay ka kooban tahay, 3 waa asal, halna waa zaa'id. 3da asalka waa alfaau walcayn wallaam, alxarfu zaa'idna waa alwaaw. miithaalkiisu wuxuu yidhi sheekhu: xawqala yuxawqilu xawqalatan waxiiqaala. yuqaalu waxaa la yidhahdaa xawqala shaykhu idaa kabira wa dacufa, markuu weynaado jirkiisana uu daciifo. waxaad ku baraarugtaa xawqala waxay kaloo noqon kartaa min afcaali naxti. waxaan hore usoo baranay wasankan facnala waxaa lagu keenaa afcaalu nuxuut. naxtigan wuxuu ahaa jumlo in lasoo ikhtisaariyo, hal ficilna lagu soo ikhtisaariyo dhowr xaraf ka kooban. mathalan basmala waa ficil ka kooban 4 xaraf. 4taas xaraf waxay u dhigmaan bismi illaahi araxmaani araxiim. sidaasi la mid ah xawqala waa ficlu maadin oo mujarad ah calaa wasni faclala. 4tan xaraf waxay u dhigmaan laa xawla walaa quwata ila billah. marka khulaasadu waxa weeyaan xawqala marna waxay noqotaa rubaaci mujarad, xuruufteeda dhanna waa asal, wasankeeduna waa faclala, macnaheeduna wuxuu noqonayaa laa xawla walaa quwata ila billah. sidoo kale xawqala waxay noqon kartaa hulaathi masiid bixarfin waaxid lililxaaq, ficil hulaathi ah oo hal xaraf lagu siyaadiyey, ziyaadadana ay tahay ziyaadatu ilxaaq. markaasi wasankiisu wuxuu noqonayaa fawcala, waxaana lagu tirinayaa mulxaq بالرباعي المجرد. نعم. قوله فيعالا يحيقالا إعلال باقلي. فيعالا أصل كيدو حوها فيوعالا، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وودي وحلو بدلياء سببتها ولا سكونيي، حرف كهرين ولا كسريي. وودي هدي الريبانتها كسران لقله رمره ثقل بإيمان حق نطقه. وودي سي محلو بدلياء ياء مركز روح النقضي فيعالا. waxaa la mid ah xiiqaalan, asalkeeda wuxuu ahaa xiwqaalan. wowdii waxaa loo bedelay yaa'an lisukuuniha wainkisaari maa qablaha, markaas wuxuu noqday xiiqaalan. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid, darsigii lasoo dhaafay waxaan kusoo taqriirinay qaacida ah alidgaamu waaliclaalu mubtilaani lililxaaq. mulxaqa waxaa laga ilaalin jiray idgaamka iyo iclaalka, sababtoo ah idgaamka iyo iclaalka waxay burburinayaan ilxaaqi. arrinkaad u saa yahay, falima jaaza aliclaalu huna xiiqaalan maxaa loo iclaaliyey? jawaabtu waxay noqonaysaa, horena waa usoo tilmaannay, iclaal oo dhan lama diidin. iclaalka la diidaya 2 shardi baa ku xiran. awalan wasadka inuu dhaco, shardiga labaadna waxa weeyaan cadamu baqaa'i alwasni, baqaa'u lwasnina in la waayo. 2da shardi markii la helo iclaalka wuxuu ka dhigaya mubtil lililxaaq. laakiin hadduu wasadka dhaco wasankiina sidiisa baaqi u noqdo, markaas dhibaato ma leh. sida hadda miithaalkeena oo kale, xiwqaalan wowdani waa reeban tahay, iclaal baa lagu sameeyey. markii iclaal lagu sameeyey wowdii waxaa loo bedelay yaa'an, wasankii markaa sidiisii uu baaqi ku yahay. wow reeban baa ya reeban lagu bedelay.
إذا واحد بات ماله إذا وسط كيو دعي وبقي الوزن بعده توا بنانتاي sidoo kale iclaalku waa bannaan yahay hadduu aakhir ka dhaco mithaalkiisana waa noo imaan doonaa waa salqa oo kale asalkeedu waxa weeye salqaya taxaraka xarfu lcilla wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fasaara salqa iclaalkii marka aakhirku galay wax dhibaato ah male almuhim iclaalka la diidan yahay waxa weeye iclaalka wasadka dhacaya maca cadami baqaa'i alwasni wasankii inuusan baaqi noqonaynin laakiin hadduu marka wasadka dhaco wa baqiya alwasnu bacdahu waa bannaan tahay sida fiicaalan oo kale ama aakhirka hadduu dhaco sida salqa oo kale labadaasi ilxaaqa ma burburinayaan ama alidqaam idqaamku waa khilaafsan yahay fa innahu mubtilun mutlaqan idqaamka mar walba ilxaaqa waa baabi'inaya sababtuna waxa weeye linkisaari alwasni bihi idqaamka wasanka ku baaba'aya maalan waxaa noo imaan doonta jalbaba haddii la idqaamo baqaa'u lwasni marka meesha ma yaal marka khulaasadu waxa weeyaan iclaalka waa mubtilun lililxaaq ilxaaq ayuu burburinayaa haddii la helo shardiga ah إذا كان في الوسط مع عدم بقاء الوزن أما الإدغام فإنه مبطل مطلقا لانكسار الوزن به نعم كدب مؤلف كحنور شيء باب كان يحلب بنايا للازم فقط بمعنى وزن كان متعد أهل معرك قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني باب كلبات أو كم إذا الملحق بالرباعي المجرد فيعل ويان يفيعل فيعلة وفيعالة موزونه كلمات كوزن كاسقادنا بيطر ويان يبيطر بيطرة وبيطارا وعلامته علامة لو قرنيه أن يكون ماضيه ماضي سن وهذا ويان على 4 أحرف أفر حرف مثل كوبا بزيادة الياء أيضا لو زيادنيه يا سعود حيث بين الفاء فاء الكلمة والعين عين الكلمة وبناؤه بنهيس للتعدية من سكن هذا ويان مفعول به يقادنا فقط نحو بيطر زيد حد اللاعي القلم قلنكي أي شقه مركود اللاعي مؤلف رحمه الله تعالى وحيري الباب الثاني وفيعل فيعل وفعل أفر حرف ككوبا صدح وأصل هل حرف وزائد للإلحاق حرف زائد كنا مركو الياء سيدا صوح كنا غضي ملحق بدحرج كدبنا وحال الله رقمي سيدا دحرج أو كلا وحضرني فيعل يفيعل فيعلة وفيعالا مثال كيسا نوحا بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا بيطر معني ذو حكم عالجها وحضرني بيطر الدابة دابدي أيو علاجي كدب حويري وبناؤه للتعدية فقط باب كان يحلو بناياه للتعدية فقط ماشي مركا ويري فقط ولو قبصدي وحير هذين وحاجرة أفعال لازمة لكن والنادر وحكم ذا سيطر وكلا وران كانوا حكسوا أروري لست عليهم بمسيطر صدق لو حلم ذا هيمنة ومتعد بحرف ومنه قوله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا واسم فاعل وحلقة كان من هيمن يهيمن هيمنة وهيمانا مركوا من باب فيعل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث باب كصدحات فعول ويان يفعول فعولة وفعوالا موزونه كلمات كميزان كسقاضا يا جهور ويان يجهور جهورة وجهوارا وعلامته علامة لو قرنيه أن يكون ماضي سين نقضه على 4 أحرف أفر حرف مثل كوبا بزيادة الواو أيضا لو زيادين بين العين واللام وبناؤه بنه أيضا لو نقي للتعدية من أصول هذا ويان بمعنى مفعول بها يقاضنيا وذلك مثال كاسي نحو جهور زيد القرآن وكلويا زيد حوعدك كرؤو قاضي القرآن كأخرين تيسي الباب الثالث مؤلف وحكو شاقي فعول أفر حرف ككوبنتهاي 6 حرف وأصل هل حرف وزائد ووضع عيسى ثالثا جهور يكون مثالي أصل كيسوحوا جهر مرقفك عدك كرؤو قاضو يالي هذا جهر كدب مركب حلو بنيه جهور بزيادة الواو بين العين واللام وودي وحيد عدا بين العين واللام ماشان ويري وبناؤه أيضا للتعدية أيضا وحو جيدا باب كلا صودا في الباب الثاني فيعل وحكو إيماني للتعدية سيدا سوكولا مركا باب كان كوكين للتعدية لكن باب كان وحو كقدوان يا باب كهرية يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف جر ستوس مفعول قاضنيا سيدا مثال كمصنف كوكلا جهور زيد القرآن ومفعول به مركا جهور ستوس مفعول كذو قاضتي سيدا كلو حبنان إنو كقد بحرف جر وحضرنيسا جهور بالحديث إذا أظهره وأعلنه نعم قوله للتعدية
waxaa laga fahmayaa inuusan baabkan lahayn ficil laazim ah. arrinkuna saas maahan, afcaal laazima way jiraan oo baabkan ku imaanaya. waxaa ka mid ah rahwaka waa ficil laazima, macnaheedu waxa weeyaan dacufa fi lmashyi, qofka marka uu ka daciifo inuu socdo. afcaashaasi waxaa ka mid ah harwala idaa asraca fi lmashyi, qofka markuu socodka dedejiyo. nacam, hada wallahu aclam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.